waxaan ku leeyahay waxaan ku naqaanaa oo aad tahay dawladdan Kenya waxa la taytar tahay madaxweynaha adaa dhisay wasiirka gaashaandhigana adaa dhisay aadan bare ducaale madaxweynaha yagii Kenya adiga ah anaga wardhaca iyo maraxaan oo dhan Soomaaliya markaan joognana hogaankii baad ahayd intaas horta caraf yeelatay bal qabso tolkaana waa ku ogyahay waana ku soo dhaweynayna inaad hogaamiye tahay oo Soomaaliyana ka ahayd Kenyana ka tahay intaas waa soo dhaweyntaada waxaan kaaga hambalyeynaa xafladda aad noo samaysay ee Afrika oo tolka oo aan isugu nimid oo hoteelada ugu qaalisan ugu casuumtay oo ugu yaraan 100,000 oo lacag caawa inuu baxday waa kaaga hambalyeynaa waxaan kaloo ka rabnaa inta kaliya inuu sii deynini inaad waxaan doonaynaa aqbasho oo qabato oo dawladda Kenya ba wax ka doonaynaa waxaan ka doonaynaa inaad noo yeel qaadon hor socotana waa ka doonaynaa taas goonayno ma balaqaaday waa guuleysana marka guuliya barwaaqo gudoomiyaha aadan gabi aadan Cabdinuur Galaal way waa adeerka waxaan ku sheegaynaa oo duurka Kenya tahay nin wagardhaca oo waxa uu wagardhac u yahay ma jiro maanta mana nolol hadda ma nool xiliyadan wuxuu gudoomiye ka yahay wagardhac saligiisu waa dhabad wuxuu ku tagaalug galaadi iyo cagaalkaayo iyo dhuusamareeb inta u dhaxaysa ayadoon cid qarash garaysa jirin wadanaha wagardhac u lugeeya u socda muddo 50 sanadood ma sha Allah barakeeyo waxaan leenahay anagoo tolka intaas aan ku ognahay gudoomiye waa ku casuunay meel badan waa laga casuumay meel badan waa kaaga qarnay haddana waa ku leenahay waa tol ahaan baan ku ducaynaynaa ilaahay caadilaha dambigaagana ha dhaafo ilaahay caadilaha awood khayr ha ku siiyo madaxii raagana Allah ka dhigo soonka falligiisaan kugu ducaynaynaa iyo ismaada falligeeda anagoo tolka ah gudoomiye soo dhawow caasimadii ugu dambeysay oo ayaan guureeyay ay dhigtay oo lagu casuumayna waatan gabadhana waa ducaynay tan kale gabadha dhoolo waa gabadhada waa ducaynay ina guureeyay waxay tahayna waa ku sharaxnay adna waxa tahay waa ku sharaxnay cidina reecada waalida waxaan maqli jiray oo sheeko ku maqli jiray waxay ahaayeen hoggaan xagga waxaan maqli jiray adinka ma idin ku arkaa adinka maanta arkaa rag iyo dumarba oo waliba qolada reec galaala aad baan soo dhaweynaa waxaan ogayaashii ka maqli jiraan ku aragnaa hada soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا أذيردي يطلقيون ما أنت أنكو دحجرو إلهي با مهداله إلهي كسكو صاد يقول إماتين أن عاو إيغا أقبشين إنا إن عسومن وكو ما سنتين قبل يؤضيال يدلين يربا مد لواد أني أيان قوريين واليدها كينينا وحنكو مقعديرها ماما كاونتي يومن رايد أكتيفيست حقيقة دبتنا وانكا هدلا مد لواد horta hadaan wagardhacnahay danta dalka iyo danaha wagardhicid in laga hadlana way fiican tahay wagardhici meel mooda degto warna iskuma seegno horta dhulkeenu wuu balaarin yahay wagardhici ay degto inta dhinacan Itoobiya degnaa ilaa qorf ilaa dhudub ilaa galaadi inta saaxaan dhinacan Puntland degnaa laakiin hadda mowqifkayga aniga maama county human rights activist anoo ku magac dheer mowqifka aan rabo inaan caawa ka hadlo waxa waay dhabad iyo galnisoor gudoomiyaha dhabad oo adeerkay macaan oo aadan Cabdinuur Galaal ku magac dheer aadan gabina oo caawa martino oo Kenya noo yimid adeer Kenya ku soo dhawow mar walba gacmo furan ku soo dhawow tolka waa ku jecel yahay saa tolka u garab taagan tahay warkaaga waa la hayaa waadna ku mahadsan tahay midda labaad waxa jirto wagardhac meel walba joogan codkaygan inuu gaaraan rabaa far kaliya foolma dhaqdaal yiri aadan gabi kaliya ordayo wax ma qabanayo waxa jirto dawladda sarana rag baa noogu jiro maamul goboleedna waa dhacay adeer maamul goboleedna waa dhacay dawladda sarana dad aan mar walba soo doorno magaca wagardhiceed madalo xildhibaan ayaa noogu jiro galmudugna waan xisaabsanaho dhabad iyo galnisoor galmudug bay ka tirsantaa galmudug madaxweynihii saddexaad ayuu marayaa galmudug maanta madaxweynihii saddexaad haduu marayo wagardhicina ay galnisoor ka maqan tahay galmudug tee jirto wax galmudug liira aniga ma bilif gareysni ani ayaan ahaan
waxaan u belief garaysnayn oo ina agtayda galmudug ay waxba ogaan galnisoor baa maqan gaalkacyo hadda maamul Puntland waa ka jira maamul galmudugna waa ka jira waa la wada dagaa galnisoorna sacad iyo wagardhac baa wada lahayd dagaal 91 waa dhamaaday maamul goboleedya la suubsaday maamul goboleedka la suubsaday in wagardhici ay galnisoorteeda lagu soo celiyo ayay galmudug inay ka hadasheen Cabdikariin Guuleed baan wax ka qaban xeef baa wax ka qaban ma qorqor waxaan maqlay inuu dhabad seexday dhabad haduu seexday galnisoor inuu soo celiyo oo wagardhici galnisoorteeda ku soo noqoto wali galnisoor wagardhici intay ka maqan tahay galmudug ma jirto midda labaad dhabad waxaa jirto iskuul hadda eedada Caasha Cabdinuur Galaal ay suubisay shacabkii dibadda ay ka keentay dagaal badan u gasho lagu la dagaalo iskuulka ma dhisi kartid leeyo ay ku dhibtootay ilaahay mahadi ilaahay wuu ku guuleysiyay iskuulka way dhistay raci afraad ba hadda iskuulka ka baxay macallimiinna waxay uga keentay Soomaaliya boormay ka keentay waxay ka keentay Muqdisho meelo badan bay ka keentay maanta baadiyo waa laga soo galay maxaa taqaanaan baatin waagirey baadiyaha lama magaala la soo galay magaalo maanta farbaal ra maxaa taqaanaa dhabad in la dhisay ahayd iskuulka ee Caasha Canab ayuu ilaahay ku guuleysiyay iyo naagnimadeedii waxay dad ka keentay dib ay ku martay maanta rici afraad baa ka baxayo anoo yar markaan dhabad tagay motor waa la gubo motorkii la gubay gudoomiye wali lama dhisin Soomaa motorka motorka dhabadeed oo kala biyihiisa waa dhanaan ceelka in hoos loo qodo wadankii ceel loo dhiso maxay isbitaal waxa jirto dhalinyaro tolka ah oo dhaqaatiir ah intay lacag soo gureen inay isbitaal dhiseen isbitaalkii ma shaqeynay galmudug hadayna saacideeyeen maamul goboleedka oo dawladda sare ninka noogu jiro dhowr wiilal oo xildhibaan baa soo maray waxa loo doortaa ay magaca wagardhiceed ay baarlamaanka noogu fidiyaan inay miiska noo qaraacaan ay dawladda sare tolkeedo ay wax uga keenaan oo dhabad isbitaal shaqo loo abuuro dhalinyaradii ma wadankii wax laga qabto la dhiso nin walba maalinku kuura raadinayo ama cod uu raadinayo balama qaada markuu wax baarlamaanka sare tagan wax tolki dib ugu soo noqdo ma jirto oo taasi waa la iska warqabaa adduunka waa la hormaray nin walba isaga tuuladiisa dhistay maqaaxidiisa dhistay ragga dawladda ku darsadeen baa qayladaan u diro hay'ado u keeno dawladda wax uga soo qaado wagardhici ceelna uma maqadno cidna uma maqno marka inaan danta dalka iyo danaha wagardhiceed laga tashto aadan gabi wuu dadaalay laakiin in la dadaalo oo annaga aan magaaladeena dhisano oo galmudug la xisaabtano galnisoor la soo celiyo oo ninka dawladda sare ragga loogu jirna la xisaabtamo oo isbitaalkii dhabad hadaan lagu dhaleyn oo laga qaadayo meel kale loo wado oo dhaawici lagu daaweynayo oo qofkii jira lagu daaweynayo taasi waa nasiib darro oo wagardhici siyaasay wagardhicina indhaha furato because annaga ifka wax nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ka sharaf badnaa mal waa dhimanayna gurigeen waa guri aakhiro ilaahay qaatu maxamed noo midiro ilmaha naga dambeeyay tiimka naga dambeeyay in dadkii aan wax uga tagno dhulkii wax looga taga ayaan rabnaa ma garateen marka wagardhici waa inaan isku tashanaa danta dalka iyo raggi aan dooranay iyo galmudugba aan la xisaabtanaa dawladda sare iyo dawladda dhaxaba oo wadankeeni aan dhisano wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh